Arsenal oo ka duwan xaaladeedii sanadkii hore markaan la kulmaynay ama gurigooda kusoo ciyaaraynay markaan Arsenal maysan badin ku dhawaad 2 bilood waxaa ugu dambeysay kulan ay badisa Arsenal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boxing Day, Derby London, Arsenal, Chelsea. magacaygu waa Cabdul Caagale, channelka daawanaysid waa Caagale Channel. haddaad ugu cusub tahay soo dhawaw subscribe kula saar. haddaad hore ila joogtay koobkaada shaah soo qaada waayo waxaa la ciyaari doonaa isbuuca Boxing Day Arsenal Chelsea kulanka ugu weyn isbuuca loo yaqaano Boxing Day waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Arsenal oo maalmahan xaalkeeda aan fadhin. inta videoga bilaabin waxaan kaa codsanaa haddaad igu cusub tahay laagaada waa muhiim, subscribe waa muhiim, kusoo dhawaada. waayahay Arsenal oo ka duwan xaaladeedii sanadkii hore markaan la kulmaynay ama gurigooda kusoo ciyaaraynay markaan Arsenal maysan badin ku dhawaad 2 bilood waxaa ugu dambeysay kulan ay badisa Arsenal November koodeedii ilaa hadda waxaan dhihi karnaa waa 2 bilood ku dhawaad. Arsenal xaalkeeda ma fadhiyo 14 kulan waxay fadhisaa kaalinta 15aad waxay leedahay 14 dhibcood. haddii aad tomorrow Chelsea ka badiso Arsenal waxay u dhaadhici doontaa relegation bottom ama 18ka ayay Arsenal geli doontaa ama 19 kooxaha ka dambeeya hadday soo badiyaan tomorrowne waxaa la ciyaari doonaa kulamo dhowr ah. marka isha ha lagu hayo Arsenal xaalkeeda tomorrow ma wanaagsana. haddii ay Chelsea nahay mar waxaan leenahay Arsenal imisa ugu badi doonaa marne walwal baan nahayo kulamada awayga Chelsea last 3 game ku dambeeyay ama labadii kulan u dambeysay awayga Chelsea waa loogu soo badiyay. markaan isha macalinku wuxuu ku hayaa tomorrow waa boxing day waa big game. Arsenal iyo Chelsea kulan lagu degdega maahan, balse markii loo fiiriyo Arsenal xaaladeeda ay ku jirto ama xaalka siduu ugu xun yahay waxaa laga yaabaa inay Chelsea ka badiso ay kadibna kor soo fuusho, balse wax waliba waxay dhammaan karaan ama la ogaan karaa markuu kulanka dhammaado. markaadna halkan soo badiso doonaa haddii Chelsea laga badiyo ama haddii ay Chelsea badisaba labadaba waxaa ku sameyn doonaa reaction. waayahay gudaha aan galno team newska Chelsea Hakim Ziyech tomorrow lama heli doono. I hope in la helo kulanka Manchester City after Monday night markaan la ciyaarno Aston Villa. Reece James iyo Tim Chilwell ayagana tomorrow lama filayo in la helo waayo macalinku wuxuu yidhi waxaan firi doonaa siday yihiin xaaladooda, balse waxay u badan tahay in ayagana la helaynin oo la heli doono Monday night. Arsenal waxaa dib ugu soo laabtanaya ama la filaya inuu dib ugu soo laabto kabtankoodii Xhaka oo 3 kulan oo red card ku maqnaa. Aubameyang asigana lama heli doono tomorrow sida Arteta noo sheegay. kusoo dhawaada markaane waa lineup-kayga. waayahay markaane kusoo dhawaad lineup-kayga waxaan ku bilaabay goalkeeper-ka waa Mendy. ilaan goalkeeper-ka Chelsea ma haysto sanadkan waxaan haynaa Keba oo sanadkii hore aan ogeyn inta gool laga dhaliyay, balse ninka shabaqiisa maalmaha ilaabsaday clean sheet-ka ama history-ga Chelsea kusii wado taariikhaha sameynayo waa Mendy goalkeeper-kayga. right back maadaama la helaynin Reece James waxaan soo geliyey kabtanka qabiilka Azpilicueta. right back ama left back waxaan geeyey Emerson asagana bench lama heli doono tomorrow. labada difaac dhexe waxaan soo geliyey qabiilka center backa ninka experience-ga leh Chelsea wax badan ka bedelay sanadkan waa Thiago Silva. aan rajaynayo kulankiisa ugu horeeyay Boxing Day ciyaarayo tomorrow Arsenal weliba London derby waa Thiago Silva iyo Zuma. khadka dhexe waxaan soo istaajiyey Nicolo Kante. aan rajaynayo tomorrow inuu sidii waagii kulankii u dambeeyay ee Chelsea iyo Arsenal wada ciyaarayeen inuu kufay kadibna gool laga dhaliyay Chelsea tomorrow. I hope inay dhicin waxaas tomorrowna waxaan rajaynaa inuu rob imaan doono. waxaan hor istaajiyey aan u baahannahay kulankan pressure badan in la saaro Arsenal si loo burinayo haddii gool looga hormara am sure Arsenal Chelsea ku hormartay gool Arsenal markaas 2 3 4 5 waxaan ag istaajiyey aan u baahannahay kulankan in la saaro pressure badan ama pressure badan la saaro Arsenal si loo ceersanayo difaacyadooda qalqal la geliyo kadibna iska dhaliyaan ama laga dhaliyo waa Kovacic iyo Mason Mount. markaan daawanay kulankii West Ham boring game iska ahaa Jorginho oo gadaal maanta kubaddu celinayo iyo Nicolo Kante oo maalmahan ciyaarin meesha ciyaaray number 8 oo iska iloobay kadib markuu maalmahan seasonka sida u bilaaday lixdiisii lagu celiyay markuu Kovacic soo galayna waan aragtay ciyaartiisa isku bedeshay. marka Nicolo Kante waxaan ag istaajiyey oo labadiisa garab ka dhigay waa Mason Mount iyo Kovacic. garabka bidixda waxaan doonayaa tomorrow inuu si fiican u ciyaaro oo Bellerin si loo ceersanayo goolka la geeyo. yaa waay ninka lamaan waa Captain America Pulisic. garabka midigana waxaan geeyey Timo Werner ninka maalmahan ay shabaqa iyo asiga isdiidan yihiin birta ku dhufo goalkeeper ku dhufo maalmahan iyo asiga gool la'aanta ay hayso. markan haslihin ninka muxuu soo wadaa ama striker oo soo wadaa waa meesha calaamad su'aalka ay ku taagan tahay yaa ciyaar doona tomorrow striker Chelsea. Tammy Abraham wuxuu dhaliyay 2 gool laasiga kulanka u dambeeyay ee West Ham. aniga ahaan ma jeclaysan Tammy Abraham inuu noo noqdo number 9 tomorrow kale. waxaan u baahannahay nin kubadda hayo difaacida Arsenal qalqal geliyo ka istaago meeshaas taagnaada maanta dhan waa Olivier Giroud.
Olivier Giroud uu meesha taagnaado waxaa Janis helayo Mason Mount, Kovacic, Pulisic and Timo Werner. So Arsenal qalqalkeeda meeshaas ayaa lagu sii zaa'iday karaa markay strikerkii ahaan tomorrow la ciyaarayo waxaan soo gashtay aniga ahaan ana hope inuu Lampard soo geliyo waa Olivier Giroud. markaanne waa saadaalinteedii kulanka waxaan ku dhamaan doonaa sida aan isleeyahay ama aan rajaynayo marka aan qiimaysid xaaladda ay Arsenal ku sugan tahay maalmahan iyo kulamo walba u dambeeyay ay soo ciyaartay way lose garaysay balse tomorrow ma jecli Arsenal maadaama Idrisna la tahay labada naga dhexeeyo waxaan jeclahay in Arsenal ugu yaraan aan ugu badino 2 gool iyo waxba ani saasa ku saadaaliyay adiga maxaa ku saadaalisay Arsenal leh waa niman magaalada la degan waa London magaalada naga dhexeyso ku xal gudbin imisa loogu badi doonaa imisa ay ku dhamaan doontaa ciyaartaas soo saadaali balse tomorrow Chelsea ma doonayo ciyaartooyda Chelsea asxaan wax la yiraahdo ama respect wax la yiraahdo in loo sameeyo Arsenal sidoo loo wado in la yiraahdo Chelsea ayaa u dirtay Arsenal relegation Arsenal 2020 xilligii coronavirus waxay gashay relegation tomorrow I hope in Chelsea badiso arigana meeqay ku dhamaan doontaa soo saadaali tomorrow haddii Chelsea laga badiyo waxaan ku ballan qaadaa inaan halkan soo fadhiisto aan jarjaro ciyaartoydii ama macalinka wixii ka hadlaabay haddii Arsenal laga badiyana waxaan soo fadhiisan doonaa sidoo kaleeto aan Arsenal saan u jarjarayno ama 90 minutes ku dhamaysan doonaa Arsenal وكم ما سنتها مقالك داوشة ديسة هدي نقول عصبتها هاي مرة بعد سودوا سبسكرايب هذا وانو مهم لا قادنوا سيدو كلا انت سوكسو قوينا داوشة مقالك هذا ما سنتها هاي داوشة هذا نقول عصبتها مرة بعد سودوا سبسكرايب هذا وصار كومنتي لو ذاك هدي يعتنا إمسائي كل ما دونتا بوكسين داي هذا ضروري لجوكتي وكم ما سنتها لجوكست هذا مقالك هذا لا قادة إيوه عاونا هذا أنا مساعد يسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته